kulan wacan wanaagsan daawadayaal halkan naga daawanaysaan waa Astaan Sports Ramadan Kareem dhamaantiinba garabkayga waxa taagan haligii hore kubadda cagta ee Soomaaliland soo maray xulka qaranka Soomaaliland sidoo kale gobolka Muruujeex iyo kooxda dawladda hoose oo maanta chance dib u helay inuu mar kale ka soo noqdo ka soo muuqdo garoonka Hargeysa Stadium tartan maxalli ah oo tartanka bisha barakeysan ee Ramadan maxamuud kama wareysan waayisi ciyaareed wareysi far badan ku bixiyay laakiin waxaan ka wareysan doonaa waayihiisi Hargeysa Stadium iyo dhacdooyinkii inta badan uu soo joogay maxamuud ku soo dhaw marka hore Astaan Sports bal ka waran waayihii Hargeysa Stadium xilligii ugu horeysay horta Hargeysa Stadium aad ku ciyaartay maxamuud bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah rabbil caalamiin Ramadan Kareem Astaan iyo Cabsaaq Binde runtii waa dadkii ka culusaaday kubadda cagta ka fadhiistay oo ciyaaray dib ugu soo noqday bisha Ramadan aniga ku metelna la jiniska ciyaaraya runtii aan ku ciyaariyo kooxda Maasim waxaan xasuustaa waqtiyahayga ciyaareed 2000 meelaha 2001 2003 Hargeysa Stadium oo tarbulu xitaa qabyad yihiin oo burbursan yihiin dadka daawanaya ay kooban yihiin ciyaaruhu ay yihiin ciyaaro runtii duruufada lagu shaqeynayo iyo maanta runtii 2013 dhulkii roog leh kamarada la iska duubayo muuqaal laga helayo arrimahaas runtii arkaysa isbedel ka dhacay sportska waxaana runtii ay muujinaysaa in ciyaaro isbedelkii soo qaatay marxalad kala duwan soo mareen aknada saaxiibada kale ka ciyaaraya la jiniskana iyagana waxaan bogaadinaya waa xagaag maxamudow marka la eego Hargeysa Stadium garoon aad u weyn ciyaartooy weyn baa ka soo muuqday adigu laakiin markii aad funaanad koox aad u xidhato kooxdii ugu horeysay funaanad u xidhato Hargeysa Stadium aad matasho kooxdeeba runtii aniga ilaa yaraantii Hargeysa Stadium ku soo ciyaariyay garoonkan dala char baan ahaa waayay ciyaaradna ku soo qaatay ilaa 2004 markii kooxda dawladda hoose runtii aan koox sareeyo ciyaaray laakiin waxa ka horeeyay Liban Fiin Yogol Diana Club kooxii maxalliga ah Serie B Serie C marka 2001 2000 meelahaas noqonaysa qiyaastii waa xagaag garoonkan marka la eego garoonkan aad u baaxad weyn adiguna inta badan nin weeriyahan aad ahayd oo goolo fara badan dhalin jiray goolashii Hargeysa Stadium aad ka dhalin jirtay gool saameyn ku yeelay oo taariikhda qayb ka ah ma xusi kartaa والله Hargeysa Stadium garoonka garoomada weeye garoon cajiiba qofka dibadda ku soo ciyaarina wala qabsan karayo lama tirin karayo muddo 20 sano ka badan baan Hargeysa Stadium ku soo ciyaariyay gool heer walba ka soo dhaliyay qof kasta Hargeysa Stadium ka dhaliyay waxa goolo qurux badan ku gobolada tahay kooxaha tahay kuwi kale ciyaaraha friendly matchka dhamaantood waxay goolo qurux badan bahay bal dadka ku daawanay position-ka ka ciyaari jirtay bal ma tilmaami kartaa garoonka aad u weyn adigu wallahi Hargeysa Stadium goolkii urun baan ka noqon difaac dhexe weerar inta badan wax ku ciyaari jiray baalaha weerarka 12 ama garabkan ka ciyaari jiray inta badan way kulanku u saameynta badnaa isaga laftigiisa ma xusi kartaa aad Hargeysa Stadium ku ciyaarto wallahi waxa ahaan kulankan ciyaariyay teamka Liban markii aan yar la soo qaatay kooxda Liban baa ku qaatay oo markay Shambuliye ka joogan iyo Ciise iyo Duubaayo iyo ragacanka iyo waqti Umar Henry ciyaar jireen Cabsalaan iyo kabtanka Finland ciyaar jireen iyo Naciim iyo Moolid Maxamed Moolid iyo حسين درجة فرها بدناي هرجيس سبيل وتحت كم هاين عربية نواي ورجع عنك سعير شرين أنا يلا ساقاتين كسام من قدام أيوة بدنا كم رح لا أديك توبران كوبت كجوليست أديك عياريها كوبت كجوليستي سامين يتاريخ نوعية كدقين بالكجوليس جالس والله هرجيس هذا يوم تاريخ بدن بيا لونك سنة قرح بدن كوبت عاد ثاني سنة هاي إحنا رجعنا إن شاء الله دي هاي عرفان بعدين لا تجلس بيان مكان كوكر رمضان أنا كوكر رمضان تكبر بالفرصة ده أول شيء أنا دب تاجرش كده والله والله دي مدة بس أنا كده بنقرأ كده بقصة نقضي وكل عياري رنتي والحمد لله ولي يعرف عن بالعيار يحرج إن شاء الله ينام يدوك من الدارين إن شاء الله سديت ممكن جول كده يسافرنا كجول كيو على بعض جول مكسكوها مسكشوا جول مسكين سيح جبها هي قاد معي ولا سبب حسوسي تذكر والله كبدو حد فريكيك صار هذا كابتن يالله أنا قلنا نشيل كورة عيدا نسويتش أساسا تاسه وهاجر بل يرى إنك جرانك دب دوني وياه عيارتك بلادن ما يحسسني ما طلعنا بكتير شارد ديال عيار واحد ليه بدك وين وصادي تحتمل كوين هلا قبته هذيك من هلا عيار سي مدام جرانك ديال لعب عياريه أنا بيصير لعب عياريه marka fursada sirkitis aad baad maasan ka faa'iideysa macmiil qiimo dhimista ballaaran ee lagu sameeyay bisha barakeysan ee Ramadaan ku iibso receiver ka Astaan $19 oo kaliya